adigu laftaada waad u codeynaysaa qofka aad u aragto in fikradiisa ganacsigu tahay tan ugu wanaagsan laftaada codkaagu waa qayb ka mid ah taageeridda kooxdii labaad ayaa xagan ku tartamaysa oo difaacanaysa hal-abuurkooda ganacsiga magacoodana la yiraahdo Bulsho Flowers waxay ku sameynayaan ubaxyada dalka gudihiisa iyaga jooga awal dalka dibadiisa laga keen jiray dhaqaale fara badan baa ku bixi jiray waxa ugu mudan ee in la dhiirigeliyana oo wax soo saarka dalka gudihiisa hablahani waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo oo la taageero رمضان كريم أصحاب تقاليع ملك استوجبتان دمانتين بعدات كل أسبوع هاي ببيجر راح أقول ليه كوسابير لأنك يوتيوب هذيك لصعود سبسكرايب سو كل برنامج كان لو ذاك أصحاب رمضان وديرجلي حبلها عن كوفي كريا إن سميان ملايين كدولار ودرنسي إن وحنا يقبلنا يعني تحي واحد وناس. مقعي وفرح عبد الله محمد أساسها بلشو برودكشن فلاوريس وحنا كسعودة هرجيس سومالان جارهان مرودي شاح. يا كل صعدة مركز تيم كل تيم كي ودور لكن أنت هوري وحن كوجلنا صدق ذا وحن كسر منديجنا إسبر برديجا نوحي دمبه أنا جاي بقى أتواجد بزنس كيجا مركا واتها فرحة واحدة عشان تغاض الستة واحد كجرسين دونتها وحيابي الكنات كسر برديجا سنة ترتكي قريب جلسين يو حيابا سلا تر برنامج كينن وكيب سنة يعاوة يديك يو حنديك لبحة يجودية بسم الله الرحمن الرحيم بيزنس كيجو بلشو برودكشن فلاوريس waxa uu soo saaraa falaawrada qalin jabinta walibana dalka gudihiisa kuwaas oo dibadda inooga iman jiray walibana imaada xilli cayiman oo ah xilliga qalin jabinta balse kun waxay kaga duwan yihiin waqti kasta waad helaysaa oo dalbato waa diyaar midab kasta oo dalbatona waad helaysaa waxaan u sameynaa saddexda xisbi qaran calanka Soomaaliland institutionada kale ee ka jira magaalada targetkeyga waxa weeyaan sidan u soo saar lahayn good quality production flowers in Hargeysa Somaliland ayadoo business kan oo kale aanu ka jirin Hargeysa iyo Somaliland oo dhan ujeedkeyga waxa weeyaan inaanu ballaarino oo aanu horumarka gaarsiino bulshada oo dhan problemka xalnayna waa kaasoo faraawlada waxay ag taagan halkan gacantayda midig asma waxay xirantay faraawliskii dibadda ka imanay hadda wada arkaysaan kulay quality-giisa iyo quruxdiisa idinka garan kara inanka halkan ay taagan Cabdiqaadir baa la dhahaa isaguna waxa xiran yahay faraawladii Hargeysa lagu sameeyay production of Hargeysa ama made in Hargeysa Somaliland solution keyguna waa inaan sameeyno on good quality production wow dalka gudihiisa ayaa lagu sameeyaa flowers ka rabto awal hadii aad dooni jirtay talow keeba ku qancin kara inta laakiin design-kaaga adiga dooranaya waan helaysaa waxayna martaa 6 process 5 process bay martaa processka ugu dambeeya ay ku soo baxa output-ka loo baahan yahay halka processka koowaad ka preparation ka labaad cutting-ki ironing-ki making-ki packaging-ki and product dhammaystiran laga gaarayo haddaad aragto waxaad arkaysaa isbarbardhiga flowers oo dhammaantood kuwii dibadda inooga imanayay quality ahaan iyo qurux ahaanba waad arkaysaan halka joogaan markan barbar dhigno kuwii dalka inooga imanaya waxa xidhay arday qalin jabisay arday kastoo qalin jabiya wuxuu helayaa faraawil u eegoonkiisa qof kastoo caruus u baahan wuxuu helayaa faraawil ku baahnaa qof kastoo oo doonaya inuu dharkiisa u ekaysiisto loogu ekaysiyaa kulli competition-ka aniga faraawilka dibadda laga keenay mooyee cid kale oo igula tartamaysa ma jirto sidaan arkayo haddii aan yara qiimeeyo dakhli ahaan horta waddanka wuxuu ku soo kordhinayaa waa inuu tax forgo cashuur inuu dalkii lagu bixiyo in job creation sameeyo haddii ay ballaarato 5 process bay martaa process kasta wuxuu u baahan yahay dad cayiman oo ka shaqayn doona wuxuu safe gareynayaa lacagihii dibadda loo diray kulay teamkaygii rasmiga ahaa waa teamkaas waxaan hay structure-kii company-ga anigoo asaasihii labada hablood iyaguna ah production-ka labada inanoo midna technical yahay midna yahay marketing and consulting kulay kharashaadkii halkaas baan ku soo dabaqnay waxaan u baahnayn 6 machine haddaan eegno maxaad faa'iideen aan baad soo saarteen waxaan soo galay bishii waxaan ka soo bilaabnay 9 sidii la noo sheegay waxay soo galay $2440 waxaan iska jaray kharashaadkii waxay soo faa'iido noqday $1550 halka markan ku tuso halkii kartoon ee flower la iga siinay aniga qiimo jaban markan soo saarana haddaan ku estimate gareeyo 100 flower waxaan ku sameynayaa $105 halkan ku dhufanayo anoo kii dibadda ka jibinaya $4 ilaa $400 buu noqonayaa 100 flower oo waxaan haystaa faa'iido dhan $300
aad bay u mahadsan yihiin labada. waxay soo bandhigeen fikrad aad u qurux badan oo ah in flowerska waddanka gudihiisa ku sameynayaan waxa weeyaan nooc walba aad rabtana kaaga dhigayaan awal dalka dibadiisa laga keeni jiray dhaqaale fara badan baa ku bixi jiray laakiin iminka iyaga farsamadii iyo wax walba iyo waqtigii oo yar design-ka rabtana lagaaga dhigayo waaw waa fikrad aad u qurux badan aad iyo aad bay mahadsan yihiin iminkana waxa weeyaan qaybtii su-aalihii wareegi doonaan insha allah waxaan rajaynayaa in su-aalahana si wacan ay u difaacan doonaan markan waxaan ka bilaabi doonaa cabdilkariim oo su-aalihiisii israacsan doona kadibna farax baa u jawaabi doonta aad baan idinku hambalyeynayaa businesska ama ganacsiga runtii waxa uu egyahay dee ganacsi innovative ah kolley detailskii weli aada umaan wada helin isla markiiba laakiin processka aad halkan kusoo bandhigtay idinku inaad tallaabooyinkan oo dhan idinku maraysaan oo aad dabeedna finalize garaysaan ilaa aad ka gaadheen final product waa wax aada loogu farxo weeye hambalyo marka hore ganacsigiinu markaa waxaa tiri wuxuu ku wajahan yahay ardayda khaasatan qalinjibintooda somaliland horta ma jaamacaduhunbaa mise high school maaragtay secondaryaduna ku jiraan iyo kuwa kasoo hooseeya marka loo eego baahida loo qabo dhimaanka suuqa ka arkay dhammaan meheradaha giftiska iibiyo oo dhan walow aanan weli gaadhin oo businessku wax yar jiro baahi weyn bay u qabaan hadda customer baan iyaga ka leeyahay kii dibadda waxaa jira meheradaba iskaba daayayba oo kayga qaata oo kusii xisaabtama oo sii dalbada inta darsin ay u baahan yihiin waxaa kaloo jirta dhammaan ardayda qalinjabinaysa institutionada gaarka ah sida hay-adaha bisha cas oo kale waxay qaataan dhisaynkooga casankii cadaan qolyaha kale soo dalbatee sida xisbiyada saddexda qaran way qaadanayeen berigi dhaweyda ololaha xiliyada ay dhiinmeyda oo kale qolo qayb calankaabaan sameeyaa marka taargetkaygu aniga maaha inaan dee hal qof ka iibiyo laakiin waa inaan ku iibiyo jumlad iyo tafaariiq waxaa kaloo igu xiran meherad ku taala berbera oo la yidhaahdo saaxil giftis marka productionkaygan haddii aan sii wado waxaan filayaa inuu dalka wax badan u kafurgarayn karo insha allah targetkaagu laakiin ugu weyn marka hore waa ardayda qalin jabinaysa soomaaliya dhan targetkaygu dee waa inaan bahaladan dibadda laga keenayo aan joojiyo baahidii dhammaystiro ardayda qalin jabinaysa dee maahe waxaa xidhan kara ku qalin jabinaya ku caruusa qof la soo dhaweynayo oo kale hay-adahoo kale dad bay soo dhaweeyaan xisbiyadii hore way tegi doonaan kuwa kala iman doona marka aniga ilamaha business haraya laakiin jiil kasta baahidiisa qalinjibinta uu ka bilaadhan iyo cid kasta way soo dalbanaysaa waxa adigaagan haddaad tidhaahdo dhisaynkaasaan u baahanahay waqtiga ugu yar baa lagu sameynaya oo kuu diyaar waa gartay briceka markaa qiimaha briceka haddii aan kuu sheego resultiga caadiga ah kolley waa taqaanaa no frawilkan waxaa la siiyaa $5 waa iska dee la wada garanayaa haba la siiyee kanuu ka jabayo $4 baa la siiyaa sababtan u siinana waa anagoo dee hargeysaba ku sameynay waxaan ognahay inta gasha in ka badan inay kasoo baxayso matalan haddaan ku yidhi waxaan sameynayaa 100 flower boqolkiiba $5 baa iga gelaya calaa $4 haddaan sii balka war materialka xaguu ka yimaadaa materialku halkan dee dibaddu ka yimaadaa laakiin halkan baa laga helaa isagoo sidaan kuma yimaado waa aniga process ku tusay kolley processkaasaan wada marnay dee cid marisa anugu ma aragoo dee haysaba aad baa umahadsan tihiin bulsha production oo sida cabdikariin sheegay waa fikrad runtii innovative ah oo hal abuur leh waan idinku bogaadinayaa haddaad ku guulaysataan iyo haddaydan ku guulaysan tartankanba inaad sii wadaan oo maaragtay aad ka midha dhalisaan ilaahay idamkii anoo sii daba socda su-aashii cabdikariin ee hadda barayska iyo costiska la xidhiidhay marka tusaale ahaan aada 100 mir samaynayso eeda $4 siinaysa xabadii ilaa 105 bay ugu taagan yihiin 105taasi ma alaabta lagaa soo iibiyeyba mise waxaad ku dartay laydhkii materialkii kale dadkii kiradii guriga costiskii oo dhanba mise waa waxaad ku xisaabtamaysaa materialka iminka waxaan kuu soo qaatay tusaale ahaan 100 xabo balse ka waran haddii aan sameeyo 40 dersin oo 40 kaa dersin aan ku dhufto dersinkii waa $60 haddaan calaa $5 xataa siiyo waayo
برودك لمي ذا ميالو وان قاليين كرا وان جمين كرا حلبة لو باهن هاي إمي كمثلا سنة كيلو سوق الضبع ككعي مهردي سفرة كينتي وجبتين كلياتا أنا قدامي جوين السوق بمركا ممكن يرصو سوكي مركا هدان عادي هانكو قياسو كرتونك waxa ku jira 10 xabo kartoonkii hadii laga siiyo $30 baa la siiyaa kartoonkii waxaan ka sameeynaa laba dersin baan ka sameeynaa labadii dersin aan ka sameeyo waxa weeyaan ala dersin waa $60 dersinkii kale waa $60 kartoonkii wuxuu noqonayaa $120 waxaad iga jartaa $30 kartoonka liiga siiyay waxaad kaloo iga soo jartaa $10 bacda ay ku sheegay galaysa iyo dunta yar galaysa halka waxa faa'iido yahay $80 laakiin shaqaalihii total haan marka waxaan ka wada cost-ka markaad cost gareynayso qiimaha ay kugu taagantahay markaad xisaabinayso ma waxaad xisaabinaysaa inta alaabta laga soo siiyay mise waxaad ku darsanaysaa laydhka ironinka tusaale ahaan imka kaawiyadeynta dad baa gelaya dab baa lagu kaawideynaya biyaa laga yaabaa inay galaan so waxaasoo dhammi ma kuugu xisaabsan yihiin baan su-aashaas maan ku weydiinayo how igu xisaabsan yihiin okay su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay production capacity-ga tusaale ahaan maanta haddii aan ku idhaahdo waxaan kaa soo dalbaday container goormaad containerka buuxin kartaa calashaan maalintii imisaad soo saari kartaa bishii xaddi intee leeg ayaad soo saari kartaa markaad lacagtan haddii lagu siiyo ood ku guulaysato productionkaagu intee buu kordhayaa oo xaddi intee leeg buu yeelanayaa hortay container dalabaad buu ku xidhay marka la eegayo soo dalab oo soo xaysi waxa leeyahay heeradihii waxay gaadhay xilliga qalin jebinta ha soo dalbadaan xaddigii u baahan yahay si loogu talagalo customerkaas oo loogu sameeyo xooga laakiin meherad marka extra ku timid oo dalab dheeraad doonaysa wax laga yaabaa inaan meheradihii kale loo hayo maadaama business-ku imika bilow yahay aanu company weyn hayn ta kale waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa imika teamkaygu wuxuu ahaa 5 qof baan ka koobnayn 3 production baan hayn 3 productionka maadaama small nahay wali oo yar nahay waxaan maalintii awoodnaa in soo saarno ala qof dersin marka haddaan bishii ku dhufano 9 dersin baan soo saarnaa 3 qof marka haddaan teamku ka sii bato productionkii uu helo dhiirigelin kale iyo investment ba uu helo oo company-ga la ballaariyo oo bal ka waran ay ka shaqeeyaan qaybta productionka oo kaliya 10 qof bal 10kii ugu dhufo qof kasta bishii wuxuu soo saarayo marka kulba waxay ku xidhan tahay baaxadda ay leeyihiin employee-ga ka shaqeynaya qaybta production-ka marka halkii qof maalintii wuxuu soo saari karaa hal dersin waxaan rajeynayaa inaad himiladiina gaari doontaan laba su'aalood baan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaad xustay inaan suuqa lagugula jirin maadaama lagugula jirin suuqiina fursad bay maka kuuta hadday dhacdo suuqa lagula soo galo qorshe nooceeyaa kaaga yaalla oo aad saamiga suuqaaga kusii haysan kartaa haddii ay lacag laba dhacdo hortay bahalkan dhib badan buu marayaa marka anigu waxaan aaminsanahay qof hard working ah oo habeen iyo maalin soo jeedaya mooyee inaanu qof kale u dhabar adeegayn matalan dersin baa la samaynayaa aroornimada loo fadhiisanayaa galabnimadan oo laga kacayaa marka yay ka go-an tahay inuu company-ga maanta usoo fadhiyo oo meheradahaas baahidooda dhammaystiri karo oo ku dadaalaya inuu soo saaro intaas midda kale 5 process buu marayaa process kasta wuxuu leeyahay processkii ka sii adag waxa iman kara qaar kuwan ka quality daran sideeba labadii la isugu barbar dhigaya customer-kiina wuxuu ka doonayaa kii ka iibsanayay alaabtii inay haato mid adag oo tiyo kala hadduu in yar baro dhagaa imid wax ka dhinmaan wuxuu ka oranayaa tii hore iga iibinaysay maahe maxaa ku dhacay marka waxay markasta ku xidhan tahay inaad ilaaliso barodhaga quality-giisa marka tayadaad ku tartamaysaa tayada iyo production-kiiba oo unique-nimadaas unique uu yahay business-kaas su-aasha labaad mashruucaaga markii aad aasaastay raasamaal baa kaaga baxay ama hanti madaxeed intee leg muddo intee leg buu kusoo celiyey kharashkii ku baxay shirkadda ay kusoo celisay horta markii koowaadaan aasaasiyey business yar oo kooban buu ahaa ilaa aan soo yaro dhawaadoon lacag helayna muu sii ballaaran intii hore anaa keligay soo waday markii in aan geliyey uu soo saaray faa'iidadii isla markiiba haddana istibista baan u socdo aqalkan ku samayn jiray meheradu ay soo dalban jireen oo u geyn jiray waxaan gaadhay inaan alaabtii soo yaro kordhisto inaan aqalka iska yaro baxon xafiis yar kiraysto oon alaabtii dhigto balse xafiiskii kuma filno
dee 5 process buu maraa process kasta wuxuu u baahan location u gaara iyo dad baaxadiisii leh marka muddada ma qiimeyn kartaa muddada ku soo celiyay muddada isku soo celiyay markii koowaadeen sameeyay waxaan ku bilaabay inaan diyaariyo 12 dersin 12kii dersin wax yar baa galay markii way soo celiyay halkaas ay faa'iidadii ka arkay waana sababta in la imika uu sii wado u socdo ما شاء الله سوى عن بي وحويا وصوب بندقين فكرته دي جناحسية بلشة فلورسنا أنا قلت هاي السنة هاي وحويا توا فلاور وطنية يكون قرطة لصورنا ينوع والبا وحويا وحيمدين لديري جريو إن شاء الله حرتشينا يعني جوليسن دونان إن شاء الله أنت بريت ولا كوكل مدون واحد لي حي نبت جريو